gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'addaasi oo howlo shaqo u jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta kormeer ku tagay goobo muhiim ah ay ka mid yihiin xarumaha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer. Kormeerkan ayaa waxay mas'uuliyiintani ku tagay xarumaha wasaaradaha maaliyadda, waxbarashada, ganacsiga iyo sidoo kale wasaaradaha qorsheynta iyo caafimaadka. Mas'uuliyiintan ayaa midmid u soo kormeeray xafiisyada kala duwan ee wasaaradahaasi iyagoo xogo iyo warbixino ka dhageystay istuwayaasha iyo wakiilada wasaaradahaasi ee gobolka Togdheer. waxaan u naqaanaa caafimaadku wali iska xiran yahay daad madheer iyo caynaba iyo buu hoday waxa halkan bay ku wada hoos yimaadaan baahidaha caafimaadka adeegu u baahan yahay marka dhismihii iyo qalabkii shaqaaleeba haysato waxayba kala u baahanayd runtii aad nooga liitaa oo ay ka mid tahay dawooyinkii oo dawoyin ama safsay nooga baxay islaamka dawooyin lama keenin tahay runtii uu istabooli weeyday oo ay shaqaale way badan yihiin waxa soo baxana uu yar yahay marka dib baan naga haysta xagga shaqaalaha كنيتودا. الحين ركبنا مركا حتى نكسيو وزارة المالية قبلك وزارة المالية قبلك وحيوقع بسنت قبل كان حسابيها الجود واحد عشرة بريقة واحد كاستمر. رمتي أو إني قيمة وين ولاد هاي أو باهي وين لوقا هاي تشغلها إيو هاي تتبرك شغلها أنت بقى باهي وين بنقولنا رمتي واي مركان شغالها قبل باهيدا وين مقبنا حوين تابر شغله تمبرير بيو بدين ودن بيو شغاله لقوري تابر بيو في عين لسينا استاذ سدو الشاغي aad baan baahi weyn ugu qabnaa waxa saddex laamood ya ka furan oo cashuuraha bariga gobolkan laba baaraajo xaga suuqa magaalada ka furan iyo xafiiskii guud ee maamulka dhankooda waxa iyaguna ka warbixiyay kormeerkoodan isduwaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ee gobolada Bari Cabdifataax Shalmaray iyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Mudane Maxamed Cumar waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wasaaradda guddigan kormeerka u socotay hay'adda shaqaalaha oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka guud ee hay'adda shaqaalaha xubin komishanka hay'adda shaqaalaha ka mid ah la socota laba ka tirsan maamulka CSI Mustafa iyo Amal iyaguna kamid ah maxamed waxay u socdeen shaqadii hay'adda shaqaalaha ay qaranka uga mas'uulka ahayd oo ah kormeerka iyo dabagalka hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha ay ku dabagasho shaqooyinka ay qaranka u hayaan marka aad baan u maasanaynaa ku nimaadno idinkoo xafiiskiinii iyo goobtiinii shaqo ku sugan oo gudanaya waajibaadkiinii aad baan u maasantay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay uga mas'uul tahay dawladda shaqaalaha tayeyntiisa iyo tababaradiisa iyo kantarooladiisa iyo dabagalkiisa ayay uga mas'uul tahay iyadoo qaybta tababarkana ay noo qaabilsatay maxalka tababarka shaqaalaha dawladdu la yiraahdo CSI Civil Service Ministry oo soconaana wuxuu bay ka mid tahay hawsii dawladdu u idmatay hay'adda shaqaalaha dawladda inay kantaroosho shaqaalaha dawladda وأنا القرون اللي تبقلنا قصة وإنه وقعنا إن شغالين شقين يعني كلا حالي طبعاً يبلاتن هبين لا طبعاً يلا باتن وحنسكني صعوبة وقنا أنا بتبقل قصة ما ينبالين شقين يعني كلا إسبتال كوين مجال دبر كنت أدبان ومهرنا قيا شقاري أنا هالكلاو تقني. لكن كده سكاي مسؤولية السرسلة كسرت عيادة شغالة Soomaaliland أي كسر مرين وساردها كلا دونا قبل كتقدر أي نقطة يا miday ugu kurgalayaan hawlaha shaqo ka socda wasaaradaha gobolka Togdheer. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Moto TV-ga caalamiga Royal magaalada Burco.